السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا waxaan ku soo boqnay gurigeedii iyo hooyga magaalada ka degan tahay Maryan Huure Ducaale. Saaka bisha 15 bishii May 2021 maalin Sabtiya. marka Maryan Huure waxaan qoranaysaa xaaladeeda iyo inta iyo xaaladeeda soo maalmoodkeeda soo noolyihiin insha Allah. ku soo dhawaay ay safar caadi iska war hooyo waan iska wanaagsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. hooyo wiilkaas wuu noo yimid ankaa sheeqeeyay wuu noo yimid wuu naga qaaday maalinka maanta sawirradaan lahayn wuxuu na eegay gacantu way naafo iga lulataa waa gacanta midigta waa taa laaban waa taa way go'an tahay waa aniga dhabta saaray waxa weeye dadkaas oo masaakiin wixii hor hayaa arsaaqada aad soo dhiibteen ayaa horta midigta ku hayaa isagoo aan u gudoomin waana ka gudoomayaa ayay halkaa ka soo qaadeen nuur Allah idin dhaqaaqriya dumba nuur waa nuur aakhiriyo nuur adduuno sadaqada balaayo xijaab Allah idin ka dhigo balaayada la idin nabadgeliyo waxaad haysana barkatu rasuulka jannadii fardawisa iyo roodaan ku taga mid qamar ka cabayo waxba ku xaarayo hadayna ilaahay sugaya marka hooyo waan idinka gudoontay nimcada uu hor hayo midigtu ku hayaa ana midigtu go'anaad baan saari cagta waan kadamcayna kaga gudoomo marka insha Allah Maryan Huure waxaan idinka gudoosinaa walaalo muxsiniin ah oo ku soo sadaqaysay lacag dhan $400 ku sadaqayseen $400 oo doolarka Mareykanka ah ay ku sadaqayseen marka dadka muxsiniinta ah walaalaha ah waxaanu ugu ducaynaynaa meesha ay ka soo saareen in Ilaahay ugu bedelo wax ka khayr badan insha Allah maanta qiyaamada Ilaahay wax wanaagsan oo ay ku farxaan Ilaahay ugu bedelo maalka iyo qof waxa uu leeyahay inta uu sadaqaysan buu maalkiisa ka leeyahay waxyaabaha kale way ka tagay qofku waxa uu suluug kaga imaado iyo waxa uu qabsamay waxa uu suluug kaga imaado iyo waxa uu ku dul baariya waxa uu Ilaahay dartii u bixiyay ayaa anfacaya marka saaka waxaan guddoonsiinay oo ku sadaqaysay walaalahaasi lacag dhan $400 marka way noo gudoontay waan ka gudoomay Maryan Huure waan ka gudooma waan hayaa noo gudoontay سايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكن إن شاء الله هنصوب وغني مريم هوري ساكو بشو تهاي شنية توك بشي مي لابد يكون قوي عتاك معني سبتيا وهنصوب وغني مريم هوري أيان قولي جيني كصوب وغني ساكا مركا Maryan Huure waa hooyada da'da ah Ilaahay cimriga siiyay da'da ah marka waxa naga horanaysaa xaaladooda iyo soo noolyihiin iyo inta caruur haysata iyo sida ay nololmaadka ugu noolyihiin iyo waxaas naga horan insha Allah ku soo dhawahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والدنيا دوا إسكبر وقصة ودكتين وحويان دقفها وين بانهاي إن عد كيقات كجرانا ساسدت إنسانا أنا هي يوانا وعنا هاي الحمد لله رب العالمين وحويان ضد بانهاي يا مساكينة أو يرير ونين حنوسان يا داري أو مسؤول كهين أيانا يا يعني الحمد لله رب العالمين هو حنيد شيء ويلك شيخه هوجان كان عمرك الله ورجع كان وحافات كان لا يدقنا بدقليو يدي وحاس تبايلها الضولا يحن الله يدقنا بدقليو عاف ما ضل إيمان كان لا يدقنا تشيو هل كاي جلس هذا سي وحنوق سقاط الله يدقنا بدقليو وحويو إن هويو هذا الكوحبة بدنا يوان حنوسانا يا تد كايرير ما سديد قفوية وما ساكا فربيك شوبه أفر أياك تانا لو صوريا إن سدا أيه ويا معاني إن
marka xaaladii iyo sida xaaladda cuntada iyo wax ka heshaan waxba ma helo xaaladayada inanba konton nooga soo dirtaa dibadda Maraykanka kontonkaasaa noo yimaada dawaanu iska bibiyeysanaa oo taalka togba taagtii rugmay weeye insha Allah dawaa taa waxay ka horantay kaasina waa lambarkeedii laba inan baab xanuunsanayo aad waxay iga xanuunsanaya oo u baahan dhakhtar u baahan oo neerfaha oo mahadlin oo mid silsilad ku xidhan yahay oo silsiladsanaya waa la soo qaaday gabadha keena soo fariisay dhageysta marka or soo qabo inanka or soo qabo dheere iska dayo dheere tawdhe soo qaaday inanka kaasi waa lambarkeedii mari humre 4391452 magaceeda waa xagga sare kaga qoran marka insha Allah dhammaan dadka muslimiinta ah ee fiidoogan arka waxaan ka codsanaynaa wixii karaankooda ah oo ay ku caawin karaan hooyada dhibaataysan inay ku soo caawiyaan insha Allah kuna soo caawiyaan wixii ay woodaan oo ay aakhiro ay siiritaan adduunyada waa laga tagayaa qof walba aakhir wuxuu sugan buu leeyahay maalkaaguna waa saddex waxa cunto iyo wax kugu dul baariya iyo waxa aakhira sii dhigatay waxa aakhira sii dhigatana insha Allah waxa intaas ku anfacay wax kale waafici maayaan maalin aan ku anfacin carruurtaada iyo maalkaaga toona ay ku anfacaysa insha Allah dadka insha Allah fiido arkana ay wixii kale ka soo bixin waxaan ku bareynaa meel wanaagsan oo khayr badan inay ugu bedelaan ilaahay ugu bedelo insha Allah kuwaasina waa carruurtii nayla soo ganen kawaala daleen kuwan waa caamiya ha inankana xanuunsanay kan baa xanuunsanaya maxaa ka xanuunaysa waa hadalkunu ku xidhan yahay isaga hadalka ku xidhan hadalka lagu xidhan yahay qabiilkiisa qoyskiisana garamayo ku sheegayo magacaada yaxbu koray yax waa bahalkiin yax yaal waa sacuun waan gartay labada habloodna waa fay weeye labada hablood waa caadi insha Allah alla soona war ka soo dubka waala halkan waxa joogay ka isaguna saaya kan waa gurigoodii waa guriga iyo hoyga meesha ay ka degan yihiin magaalada tanina waa waxa weeyaan waa xero yar ariga iyo waxaas in yar ariya iyo bartan gariyaan noolka iyo waxay ku nool yihiin iyo haygooduna waa kan ordaya buqanaya isaguna wuu xanuunsanayaa xaga xanuunaysa isaga neefaha xanuunaya mana hadlo ninkanna ninka xanuunsanaya ilaahayna waxaan ku baryaynaa caafimaad sariica inuu ilaahay siiyo oo wanaagsan caafimaad ku soo celiyo kana waa gurigoodii warkaa lambarkeedu maryam hore waa kaa لهوي أنا هاك حنوسة. أي يواتك بميدك تدم بفنش إيش بيبختي إيش واملا هاي. أنت ميدك تواتا هو يواتك وانت أنا يواتك. أنت وي كبانتي وي وكلا لا دا وكلا لا دا. وكلا لا دا وكا. لأنك كرنك. وكلا لا دا إن شاء الله. dadka walaalaha muxsiniinta ah waxaan ka barinaa inay lambarkeeda wax ku soo caawiyaan insha Allah waxay awoodaan karaankooda ah ilaahayna waxaan ku barinaa dadka muxsiniinta ah soo ku soo saqaysan insha Allah waxaan ku barinaa in ilaahay meel fiican ugu bedelo meel khayr badan ilaahay ugu bedelo maalinta aanu waxna anfacayay ilaahay la hortaagan yahay ay wax ku farxo ilaahay uu ku abaal mariyo سيدنا النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.